qalbiga wehelkaaga. Asalaamu calaykum, soo dhawaada, waa sheekadeeni cashar jacayl qaybta 3aad. Kulankii lama filaan ah sanado ayaa iska daba dhacay. Najma waxay dhammaysatay waxbarashadeedii waxayna noqotay dhakhtarad caan ah oo ku takhasustay caafimaadka dumarka. Turkiga ayay muddo ka shaqaynaysay, balse mar walba qalbigeedu wuxuu sii hayay sawirka Yuusuf, ninkii qalbigeeda dooxay ee uusan qof kale beddeli karin. Yuusuf dhankiisa wuxuu noqday injineer la yaqaan oo mashruucyo waaweyn ka fuliyey meelo kala duwan oo dalka ah. Wuxuu isku dayay inuu nolosha sii wato, xitaa dhowr jeer ayuu xiriir la bilaabay gabdho kale, laakiin qalbigiisa wuxuu ahaa mid weli la haysta xusuustii Najma. Maalin maalmihii ka mid ah sannadku cusub ah oo magaalada Hargeysa la dabaaldegayo, ayaa Najma si lama filaan ah ugu soo laabatay dalka. Waxay ahayd safar qarsoodi ah, mid ay damacsanayd in ay ku eegto dalka, qoyskeeda iyo haddii ay suuragal tahay qalbigeedii hore. Waxay iska qarisay si fudud, balse nasiib ma qarsoomo. Maalin ay suuqyada magaalada dhex socoto, iyada oo gashan dhar fudud oo aan lahayn astaan cad, ayuu Yuusuf si lama filaan ah u arkay. Markay indhahooda isqabteen, wakhtigu wuu istaagay. Codna ma yeerin, indhahana kama leexan. Waxaa hareeraha ka maqnaa dadkii, baabuurtii iyo buuqa. Waxay noqdeen laba qalbi oo isku eegaya kadib sannado la kala maqnaa. Yuusuf ayuu ugu horreeyey hadalka. Najmo, ma runbaa mise waa riyo? Najma ayaa u dhoola caddaysay, iyadoo codkeedu yahay mid daciif ah. Riyadaada ayaa igu soo celisay, Yuusuf. Laabtooda waxay dib u xasuusatay wixii hore, balse noloshu ma ahayn sidii hore. Najma hadda waxay haysataa mustaqbal dibadda ah, Yuusufna wuxuu ka dhisay noloshiisa gudaha dalka. Su'aasha keliya ee la taagan tahay, ma suurtogal bay tahay in la isu laabto, mise jacaylkaas waa in loo aqbalaa sidii xusuus qurux badan? La soco qaybta 3aad. Mahadsanid haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir sabskaraabta na soo dheh.